السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. liibaan adduunyo iyo horumar oo waxaadba moodaa in laynoo tilmaamayo hadba meel oo hadba dariiq layna tusayo oo layna leeyahay dariiqan mar kan aad guul ku gaadhaysay sida waqtigaaga maare yool yeelo qodobadan raac si aad guul u gaadho iyo wixii la halmaala. laakiin waxaad moogan tahay hal sir oo laba shardi wadata. ogow oo waxa ku ballan qaaday mid aan ballanta ka bixin. inna allaha laa yukhlifu almiicaad. waa allah oo kama baxo ballanta oo uu ku ballan qaadayaa liibaan adduunyo iyo mid aakhiro labadaba in aad ku noolaa doontid bashbash iyo barwaaqo. laakiin waa goorma? waa haddii aad fuliso laba shardi. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. rabbigaa waxa uu leeyahay qofkii sameeya camal suuban, gabadh ha ahaato ama nin ha ahaadee ee mu'min ah weliba, waxaanu noolayn doonaa nololta ugu wanaagsan. labada shardi oo kale ah ka koowaad inaad camal wanaagsan samayso iyo ka labaad oo ah inaad mu'min noqoto oo iimaan la timaadid. labadaas ayaa uu ilaahay kugu ballan qaaday haddii aad la timaadid inuu kugu noolay doono nololta ugu wanaagsan adduunyo. haddii aad ka soo horjeesato oo ka santaagto cibaadada rabbi, waxa uu rabbiga kuu ballan qaaday laba kale oo ka daran oo xanuun iyo ciqaab wata. rabbiga waxa uu leeyahay ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. kan ka jeestay cibaadadayda ee ka santaagay waxaanu noolay doonaa nolol cidhiidhi ah. yowmal qiyaamaha waxaanu soo saari doonaa sidoo kale isagoo indhala. markaas ayaa uu ku calaacali doonaa rabbi lima xashartanii acmaa, maxaad ii soo saartay rabbiyow indhala-aan aad iigu soo saartay. waqad kuntu basiira, markaan adduunyada joogay anigoo ah mid indhaqaba. oo loogu jawaabi doono kadaalika atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadaalika alyowma tunsaa. markii aad adduunyada joogtay waxaad ilowday aayadahayagii oo waa dayacday. sidaasi leeg ayaa aanu kuu ilownay oo ku dayacnay maalinta yowmalqiyaame.